iyo xuska maalinta aydiska adduunka ee 1 Disembar ayaa maanta lagu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa. Xafladan oo ay soo agaasimeen komishanka xakamaynta aydiska Somaliland oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Marwan Nimco Xuseen Qowdhan, wasiirka wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland Mudane Cali Siciid Raygan, agaasimaha komishanka xakamaynta aydiska Somaliland Professor Cabdi Cali Jaamac, mas'uuliyiin ka socotay ururka dhakhaatiirta Somaliland, madax ka tirsan dallada aydiska ee Sahan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Agaasimaha komishanka xakamaynta aydiska Somaliland Professor Cabdi Cali Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qiyaasta tirada dadka qaba aydiska ee ilaa imika la og yahay ay marayso 1.1% sidoo kale 1500 oo qof oo reer Somaliland ahi ay qaataan dawooyinka xanuunka lagula tacaalo, kuwaasi oo 800 oo kamid ahi ay yihiin dumar halka 700na ay rag yihiin. Agaasimaha komishanka xakamaynta aydiska Somaliland Professor Cabdi Cali Jaamac waxa uu ku dhawaaqay in komishan ahaan ay dhawaan samayn doonaan barnaamij ballaaran oo wacyigelin ah, isla markaana ay warbaahinta ka sii dayn doonaan barnaamijkaasi oo la xidhiidha guud ahaanba halista cudurkaasi. Professor Cabdi Cali Jaamac isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dhamaystiran laakiin haddana qiyaasaha cilmiyan ku dhow ilaa inta la sameeyey waddankeena wuxuu marayaa 1.1% ayuu marayaa. sidaas weeyaan iminka magaranaysaa halka heerka rasmiga ah ee aan ku dhawaaqi karna waxa weeye inuu waddankeena marayo 1.1%. dadka dawada qaata waa xilgaaraya waddankeena ilaa 1500 oo qof ayay ku dhowyihiin. 800 ku dhow waa dumar ilaa 700 waa rag weeyaan. waxa dawada laga bixiyaa 4 goobood: isbitaalka Hargeysa, Burco, Berbera iyo Boorama. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna halkaasi ka hadlay soona gabagabeeyay xafladaasi ayaa ka waramay halista cudurka iyo sida loogu baahan yahay in shacabka Somaliland loogu baraarujiyo aafadaasi. Xukuumadahaana sida ay uga go'an tahay in ay samayso barnaamij lagu xakamaynayo fiditaanka cudurkaasi. waana kan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo arrimahaasi ka hadlaya. muddadii ay xafladaasi socotay waxaa madasha lagu soo bandhigay riwaayad kooban iyo heeso tiro badan oo guud ahaanba ka hadlaya dhibaatada aydiska, kuwaasi oo ay halkaasi ku soo bandhigeen kooxda hidaha iyo dhaqanka ururka wadaniga ah ee Soksa. intii ay xafladu socotay waxa la yaab lahaa dadweynaha ka soo qayb galayna cajab galiyay markii xanuunka aydiska laga baaray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo agaasimaha komishanka aydiska Somaliland Professor Cabdi Cali Jaamac.